daawadayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Wararka caalamkana waxa ugu weynaa waxaa magaalada Jerusalem ka bilowday isku dhacyo u dhaxeeya dhalinyaro Falastiiniyiin iyo ciidamada Israa'iil kadib markii la helay meydka wiil dhalinyaro Falastiini ah oo habinimadii xalay la waayay. meydka wiilkan dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed Abu Khatiir oo 17 jir ah ayaa waxa laga helay bariga Jerusalem kadib markii habinimadii xalay la afduubtay, waxaana la sheegay in la helay saacado kadib markii ay ka soo wareegatay afduubkiisa. booliska Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in meydkan ay soo heleen balse markii dambe la xaqiijiyay inuu yahay wiilkii Falastiiniga ah oo la waxaana loo maleynayaa inuu looga argudsanayo dilka saddex dhalinyaro Israa'iiliyiin ah oo iyagana hore loo dilay. waxaana maamulka Falastiiniyiinta ay sheegeen in wiilkan dhalinyaraha la waayay baadi goobna loogu jiray. waxaa dhalinyaro Falastiiniyiin ay bilaabeen in meel u dhow guriga wiilka meydkiisa la helay ay dhagaxaan ku tuuraan ciidamada booliska Israa'iil, waxaana ciidamadu ay ku jawaabayeen rasaasta cinjirka iyo sidoo kale sunta dadka ka ilmaysiisa. mararka qaarna qaraxyo ayaa isla goobtaasi laga maqlayay. gobernatoraha gobolka Jerusalem ninka lagu magacaabo Nir Barakaat ayaa waxa uu ku baaqay in deganaansho la muujiyo. waxaana wararku ay sheegayaan in wiilkan laga afduubtay meel u dhow dukaan uu lahaa aabihii, waxaana la sheegay in saddex nin ay ku soo baxeen isla markaana ay bilaabeen inay weydiiyaan tilmaamo ama jihooyin, markii dambena gaari ay ku riteen. waxaana laga afduubtay guriga ama dukaanka aabihii oo ku yaala degmada la yiraahdo Shufraad oo ku taala bariga Jerusalem. daawadayaal warkii oo aad kala socoteen stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waa iginta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabtii warkayga la qayb gashay. intaaynu ku kulmi doono warkan kan xiga gabi ahaantiinba waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda kala soco telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV.